suldaan cali xasan isku meel baan ku soo korray ilmihii isku raran iyo istaawajireeskii waa beri isla ahaan jiray marka hadda ninkii isaga mugaa arko waxaa laisleeyayaa si nin yar baa laleeyahay marka isaga mugaa arka anin weyn naqana inuu egeeryaan ogaa macnaha marka insha allah waxaan rajaynayaa qoyskii u gartay inuu suldaankooda mu garbo suldaan aan dhihi jirin annaga hadda runtii beelaha soomaaliya markay meel iskugu timaado suldaanka suldaan ahaan baa loo aqoonsanaa maantana hadda waaba lasii bandhigay oo ehelkiisiyaa soo bandhigay way muujiyeen waxaan rajaynayaa xilkaas xil yar maaha maxaa yeele soomaalidu sideedaba waa iska dhib badan tahay waa dad maarata waxaana alxamdulilah subxaana wa tacaala hadda ninka inta ka hadlaayo kale waana muguu garraa hadlaya wuxuu yidhaha ilaahay maarata muxuu ahaa geel waa abuurtay maxaa gaaljaclus abuurtaas jira maana garriyaa hadlaya wuxuu leeyahay maxaa gaaljac noogu abuurtay ayaga geelas dhaqooyaan marka ninka wax ka wada taasoo ka wada amaan ummadda isku wada egtaa soomaalida laakiin taas u dan lahay geelka inuu sheegu diidaya oo cidda kula tartamayo marka insha allah calaa kulli xaal waxaa waaye beesha garre ee maanta suldaankooda caleemo saaratana hadda waa garan kartaan geed garaska waa geed aan la goy karin waa geed weyn oo sakiin ma goysaa la yidhaha aniga markaas beelahan ka soo jeedo waxayna waa geed sal weyn oo muxuu ahaa sakiin ma goysoo kale garruhu soomaalida maaragtay waqooyigoo dhan ba macnaa galbeedoo dhan laga bilaabo xamar laga bilaabo ilaa iyo galbeed u soco ama etoobiya gal ama kenya gal ama soomaali etoobiya dheh degaanka soomaalida maaragtay kenya dheh ama degaanka soomaalida etoobiya dheh ya ama degaanka federaalka hadda la sameeye dheh garre waxa hormoodka soomaaliyeed waay maxaa yeele meel uusan joogin ma laha xoolihiisana hadda ma tirsano waa xoolaha maanta lagu dhaqmaa maraha arkaysa ama boosaas ha laga dhoofiyo ama ha laga dhoofiyo maxamed meeshii berbere ha laga dhoofiyo ama xamar ha laga dhoofiyo yacni geelka ugu tiro badan oo la dhoofinayo dalka laga dhoofiyo ayaga iskale beerahana waxbay ku leeyihiin ogaada hadda shabeelladan dhexe maaragtay qoryoolay oo dhan ba ayaga iskale yaa kaloo laba yaa degaba qoryoolay markii laga soo tagay dhinacaan dhan iyo haddaa dhinacan janaal u soo gudub haa buulooyinkana soo gal dhinacaasna soo gala saas ayaga iskale marka kole ninka degaan soo marna wuu yaqaana marka waxaan rajaynayaa dhallinyaradiin inaad garab ka naqataan oo aad garab u qabataan hadda ogaada soomaali sideedaba isku meel ma wada imaan karto laakiin inta timaadaa la rabaa inay daafaceeda ay gasho hal iina waan leenahay markaan inta ka baxno gadaal baan iska xamannaa yaan la isxamanin ee hala garab istaago maxaa yeele xilka cayaar maaha xilka mas-uuliyadda cayaar maaha mas-uuliyadda waa laga ordaa soomaalidu maanta waa u ordaysaa nimanka u ordaya waa fahmaysa hadda nimanka baarlamaan ku jiro kan inaa wax yar u taabto xildhibaanka hadda hadlo oo iska soo tegay kolley hadda waa la soo diiday laakiin xildhibaan hore u ahaa laakiin xildhibaanada maanta waddanka joogo 275 xildhibaan waay weli ma aragteen kooram 275 cod qaad ma maqashan waa maya waxay u tartamayaan kan inay meesha tagaan mooyaane wax inay dalka u qabtaan uma tegin waxaan rajaynayaa kuwa maanta jooga inay dalka wax u qabtaan hadday dhaarteen inay dalka wax u qabtaan diyaasbaray u badan tahay diyaasbar ha ceebaysanina ilmihiinna kole waa in sugayaanoo qaarkood xabsi ku jiro qaarkoodna maarata dhulka ay yaallaan marka suldaanka waxaa laga raba waxa waa in ilmihii intana u barbaarsho dalkiina u barbaarsho oo isku xiro oo culamaadiinka iyo aqoon-yahanka iyo haweenka iyo dumarka iyo wixii aan aqoon lahayn in aqoontooda iyo garaadkooda uu dhiso yaa laga rabaa maa inuu magac inuu qaato oo meel uu maro maaha sida n g o-da maarata hadda la baabi'inayso kale maxaa yeele saddexaan haysta annaga dalka n g o iyo niman ganacsata iyo niman technikaan haysato hay dhegeystaan saddexaasaa dowladda haysta kuwaasna dowladda waxaan rajaynaya wax ka qabtaan suldaanka inuu ku arrimiyo wanaagga in la raaco soomaali midnimada in la raaco waa laga baxay qabiil hadda qabiil waa dhammaaday inkastoo aan beel sheegayno soomaali qabiil waa ka dhammaaday maxaa yeele waa soo tijaabinay nin qabiilkiis wax ku tara waa waaye nin meel ku tagana waa la waayey isoo qora wato ku tagana waa la waayey marka sida hadda waxaa waaye waa cilmi iyo garasho iyo walaalnimo in laisku darsado laakiin suldaanka waxaan ka codsanaynaa degaanadan cilmiga jirin oo cidda beesha ay degan tahay ama soomaalida kale ay degan tahayna waxbarasho inuu ka abuuro inuu maarata caafimaad ka raadsho inuu jaaliyada meeshaan joogto isku xiro oo maarata muxuu ahaa u horseedo inay isku daraan taana fiir hal shilin project bound haddii laisku subiyo xataa la subiyo ee laysku daro waxaa laga yaabaa nin maskiinoo geeljiraya xataa in meel degaan loo sameeyo deeqasiin loo sameeyo uusan mar dambe guurin waxna uu barto cilmina uu yeesho ilmaha jiran iyo kuwa daawadan inaan daaweyno aan kaalmayno wasalaamu calaykum waraxmatullah suldaanka ha noolaadaan leenahay hawsha loo xilsaarna allah la garab qabtaan leenahay walaalaha meeshaan joogan waxaan rajaynayaa iyo inta maqan oo maqlaysana in ninka walaalka la garab qabto soomaali kalama tagto
حقيقة كان لا ميلا كلا تجي إنما أما أبتيو سجلا أما أييو سجلا أما أبونا سجلا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ugaas yaasiin cabdi maxamed bulsho aad iyo aad u mahadsan yahay kelmadihii wanaagsanaa iyo farxaddii lahaa meesha uu ka soo jeediyey runtii midnimadu aad uga hadlay midnimada in wax badan la ilaaliyo anigu Ilyas ahaan haddii fikirkayga aan ka hadlo beesha halkan aan u fadhino maanta xafladeedu waa beel 4 wadan yani degtaa waxaan u gartay amba aan u fahmay inay tahay beel aan cadadkeeda aan la soo koobi karin waxa laga yaabaa dadka qaar inay isweydaan ay dhahaan maxay tahay 4 wadan Soomaaliya waa beel degta aad iyo aad ugu badan waa Ethiopia wadanka Ethiopia Kenya ka sii tag wadamadaas oo dhan waxa sii aadaa Chad oo kale ama Tishaad dad qof ma say u yaqaanaan waa yani beel degta mar raba inaan ku sii dheeraado faahfaahin dheeri inaan ka sii bixiyo laakiin masraan ka imaaday waxaan arkay niman arday aan isleeyno college aan isku jirnay meel al-Azhar la yiraahdo markaasaan is wareysanay jaade ka imaadeen haddaan wareystay qabaa'ilkii Soomaali qabaa'ilka ma dhamaadee waxay dhahaan annagu garaana markaas ay ugu horeysay marka waa beel aad aad weyn kulay intaas aan kaga baxaya insha Allah waxaan ku soo dhaweynayaa diblomaasi hore مدن مختار شيخ عبد الرزاق فليتفضل مشكورا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كوبات الجرينا هذلو كواسط اللي يسوقني وأنا شرف إيتا صاحبي علي إيران تاني نيروبي سجوني. marka waa inaan maanta meeshan aan ku taageero diyaaraan u ahay waana ku mahadsantihiin insha Allah inaan garab gashiin aan leeyahay aad iyo aad u mahadsan yahay dabcan waxaan filayaa yaasiin bulsha wax badan hadlay marka diblomaasiga uu noo soo gaabiyo mahadsantahay jazakallahu khayran waxaan ku soo dhaweynayaa runtii mas'uul aad iyo aad u culus annagoo dhan na wada matala xitaa suldaanka halkan fadhiya matala Cabdalla Maxamed Aadan oo ah xoghayaha jaaliyadda Soomaaliyeed ee dalkan Ingiriiska falyatafadal Cabdalla وسو دو حقهاye السلام الله عليك الله يعزك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته دمان مرتي شرفتا قيمها بدن oo runtii qaybo kala duwan oo magaalada London ka kooban qaybaha kala duwan ka timid galabtan isugu timid halkan waxaan rajaynayaa inay caawa tahay waliba habeen ahad ku aadan tahay waadin salaam ya runtii salaan maartay aad u qaali ah magacaygu waa Cabdalla Maxamed Aadam waxaan ku hadlayaa magaca jaaliyadda Soomaaliya diaspora UK gaba runtii waxaa aad iyo aad farxad ii ah runtii oo aan rabaa marka hore inaan hordhac ku dhigto beesha Garre oo anigu runtii aan qayb ka ah xaqiiqdii suldaanka runtii u caleema saartay maanta halkan markaan saas leeyahay waa walaalahay waa wada dhalanay waa dhalashaan ka hadlaa guud ahaan ummadda Soomaaliyeed guud ahaan Soomaalinimada ka soo gaar ahaan dad aan wada dhalanay waaye marka xaqiiqdii waxaa farxad gaar ah ii ah oo aan ku bogaadinayaa runtii beesha Garre siday u heleen oo Ilaahay tawfiiqda u waafajiyay inay ugaas cali ama suldaan cali xasan ay ka dhigtaan suldaanka matala qurba joogta beesha Garre ee Yurub iyo Mareykankaba saan jeclahay runtii waxaan aad ugu hambalyeynaa runtii waxgaradkooda culumadooda siyaasiyiintooda dhalinyaradooda haweenkooda runtii muwaafaqadaas ay heleen waa darajo aad u weyn oo runtii in looga mahadnaqo lagu bogaadiyo looga daydo mudan runtii beesha Garre maanta inta kadib annaga runtii ka jaalid ahaan Soomaali diaspora UK suldaanka runtii annaga marka hore suldaan noo ahaa ka mid buu ahaa waan aqoon-yahana maadada waxa aqoonta maadiga ah iyo runtii sida raggiga horeeyba ay hore u tilmaameen mid diiniga
diiniga ahba labadaba runtii ku wanaagsan marka mathali kara runtii beeshana mathali kara ummadda soomaaliyeedna oday dhaqameedka runtii magaalada london caawa ku sugan qayb ka noqday oo xubin ka noqday waan annagana galabta halkaan ka markhaati kacayno inuu ka mid yahay runtii inuu ku soo biiriy nin culus oday dhaqameedyada runtii magaalada london jooga ama guud ahaan ummadda soomaaliyeed uu xubin ka yahay runtii waxgarad u ah mas-uul u ah la rajaynay runtii inuu maaragtay isu keeni doono runtii even waxaa jira problem runtii haddaan dhinac kale aan wax yar ugu noqdo problem waxaa jira runtii jaaliyadda london ku nool xoogaa qaabab kala duwan baa jira runtii waxaan aaminsanahay cali xasan inuu yahay masterkii inuu yahay isu keeni kara dadka kala maqmaqan oo luqluqyada ku kala jira nin isu keeni kara inuu yahay ma aha runtii inuu beesha garre keli uu u noqday oday dhaqameed ma aha wuxuu oday dhaqameed u yahay runtii diaasbaradoo dhan runtii halka london wuu u yahayba maxaa yeelay markaad dhan walba ka fiiriso xagga da'da magaca beesha ay wadato iyo xagga isaga aqoontiisa iyo garashadiisa iyo dadnimadiisa iyo macaariifkiisa markii labada dhinac midda maadiga iyo midda diiniga markii lagu daro wuxuu noqonaa runtii nin masterkii ah anigu runtii for the last 4 years waxaan ku dhex jiray jaaliyadan london si voluntary aan ugu shaqaynayay meelo kala duwan munaasabad kala duwan baan ka qayb galay mid oo heer qaran iyo mid mataqaanaa oo maaragtay local ahba oo madaxda wadanka markay imaanaysa soo dhaweyntooda ha noqoto ama middan mataqaanaa localkaba ha noqoto ha iga raalli ahaada saaxiibka wiilka ha iga raalli ahaado intaba waan ka qayb galay runtii cali runtii wuxuu ka cayaaraya mar walba rool weyn buu ka cayaaraya runtii arrimahaas cali wuxuu xataa ka mid ahaa dhibaatooyin fara badan oo runtii mataqaanaa jaaliyadan london ku nool dhexdeeda ka dhalatay raggii ugu horreeyay wax ka daaweey buu ka mid ahaa yaasiin xoogaal buu u yahay runtii cali runtii nin mataqaanaa annaga runtii nagu qaali ah runtii ma aha mataqaanaa galabta munaasabadan oo keli ah annaga horeyba munaasabado hore aan ugu soo dhaweynay cali inuu ahaado ugaaska beesha garre nin mathalaya annagu waa qaadan jirnay nasiib wanaag waxaan isticmaali jirnay magacaan isticmaali jirnay ayadoona maaragtay beesha aan soo bandhigin annaga waaban u isticmaali jirnay suldaankii aa joogaan dhihi jirin runtii waana ahaa xaqiiqdii dhaqankeedu lahaa runtii waan ugu mahadnaqayaa waa nin saaxiib aan nahay waa ninaan aad u jeclahay aad baan ugu faraxsanahay runtii inaan galabta runtii munaasabadan aan kala qayb galo mujtamacan ballaaran oo qiimaha badana meesha isugu yimid oo ka markhaati kacaya mas-uuliyadda alla saaray walaalkeen waxaan ilaahay ka rajaynaya insha allah biidn illahi alkariim inuu ilaahay ku guuleeyo baan ilaahay ka rajaynaya waxaan adinka idinka codsanaya si gaar ah yar hergabsanaya waxaan si gaar idinka codsanaya beesha garre waxaan si gaar uga codsanaya cali xasan inaan maaragta garabkiisa laga bixin rag culculus baa kolley beeshu leedahay in lala shaqeeyo hamigiis iyo macnaa visionkiisu waa fog yahay ilaah guduhu fog yahay meelo kala duwan baan ka sheekaysanay sabab badan buu damacsan yahay hadduu ilaahay idmo in lala shaqeeyo ayaan idinka codsanayaa ummaddeena waxaan ku dibdhacnay qofka qiimaha leh ma garanno runtii aad baan ugu liidanaa dhinacaasi qofka qiimaha leh waa liidnaa annaga soomaaliya haddaan generally laakiin beesha waxaad moodaa xoogaa inay ka yarqaab duwan tahay siday u helaan cali xasan runtii anigu runtii waxay ila tahay ra'yigani aad maanta soo bandhigteen inuu suldaanka beesha garre noqdo cali xasan boqolaal aqoon-yahana oo fara badan ay beeshu leeda oon garanayay laakiin ninka kan waa unique runtii maxaa yeelay waxaa dhacday inaan annagoo runtii yaasiin baa goobjoog ahaa iyo ex xildhibaan cabdiraxmaan ayaa goobjoog ahaa munaasabad badan oo looga hadlaya arrimaha soomaalida runtii guud ahaan shanta soomaaliyeed markii ama soomaalida markii la yidhaahdo awal waxaa leeyahay 4.5 waxay dadka ka dagaalamaan ka mid aheen annaga runtii jaaliyad ahaan waa ka dagaalanay dowladdii sheekh shariif baan u hor dhignay waa ku guulaysanay wax 4.5 la yidhaahda inaan laga sii shaqaysiinin inkastoo maarata power sharinka ay u samaysnayd haddana waxaan ku dadaalnay inaan laga sii shaqaysiinin ayaan ku dadaalnay marka tii ayad ahayd gudaha soomaaliya waa ka dhaqanshay waqtigeeda waa la dhaqangeliyay dowladdu waa ogolaatay laakiin power sharingkii waa socon waaye 4.5kii iskaga socday nasiib wanaag markii mataqaanaa madaxweynaha xasan sheekh maxamuud markii la doortay waxaan haddana bandhignay oo siyaabo badan u bandhignay in mataqaanaa xilliga xataa doorashadii lagu jiray nafteeda in wax la yidhahdo 4.5 aan la soo qaadin oo 5 ay noqoto shanta soomaaliyeed laga dhigo waayo awoodda in shan loo qaybsado annaga ka jaalid ahaan ama qurba joog ahaan waa bandhigna runtii ra'yigaas isaga waana lagu guulaysta waa midaan maanta halkan u fadhino marka shantaas ayada ah soomaalida ah in problemka dhex yaalla cali xasan inuu isu keeno oo maalin boqolo uu la shiro oo isu keeno ayaa dhacday oo waxyaabo badan oo awal mataqaana aan isku haynay laga tanaasulaya dhacday runtii
marka saasuu runtii u ahaa suldaanku nin hore u soo shaqeeyey oo saa u qiimo badan ma raba inaan intaa ka bacdi kusii dheeraado laakiin runtii waxaan keli oon leeyahay runtii waxaan ka markhaati kacaynaa kolley galabta adinkoo dhan aad halkaa markhaati aad ka tihiin suldaan cali xasan inuu yahay suldaanka beesha gare ee mataqaanaa qurba joogta haddii aanan qaldanayn runtii yurub iyo maraykankaba inuu yahay ayaan jeclahay haddii aanan qaldanayn saas inay tahay waan jeclahay inaad saa u qaadataan waa ila tahay marka annagana waana wada matala anigu beeshaan ka dhashay waa beelaha Soomaaliyeed bay ka mid yihiin marba bacdima aan sheegtay title-ka xogaaya jaaliyada aan sheegtay inaan beelahaana soo qaato uma diyaarsani way magaciina ku hadlaya marka adinkoo dhan baa idin wada matala in a way inkastoo communities ay iska badin laakiin magaca Soomaali diaspora UK oo xogaa problem iyo waxyaabo yar iska jirjireen for the last 4 weeks ama 5 weeks u dambeeyay markii madaxweynaha uu yimid halkan oo madaxweynaha runtii brotocolkii lagu soo dhaweeyay oo qaldamay oo si aan munaasabeyn ay u qaldantay ereygaas wax yar baan rabkaas oo aan ugu darsanaya raalina haligaada waan mid wax dhibaal ma laha oo madaxweynuhu habkii loo soo dhaweeyay markii aan ku soo dhaweynay mataqaana hoolkii weynaa oo ku yaalay Westminster ku yaalay thank you markaan ku soo dhaweynay qaabkii madaxweynaha markuu khudbada bilaabayay iyo ka hor inta khudbada bilaabanay qaabkii loo soo dhaweynay ay wax ka qaldameen kulli idaacadaha inaad ka aragteen qaar waa dhacaysay madaxweynaha si gaar ah waxa dan loogu soo dhaweeyay barnaamijka la yiraahdo dood wadaag oo ka baxa Universal TV barnaamijkaas dad gaar ahaa oo koobnaa oo aniga ka mid baan ahaa dadkii markaa goobjooga la ahaa meeshaas madaxweynaha si gaar ah aniga aan ugu sheego waxaan yiri waa ka xunaay runtii waxyaabaha qaladka dhacay waxayna ahayd waa technical error dad aan markaas runtii protocolka nidaamka aan garanaynin ayaa ka shaqo galay nidaamka isaga midaad mudneed ma ah waad ka raali noqonaysaa annagana haddaan qurba joogtanahay London ama UK waan sixi doonaa next time markaad soo noqoto qaabkan qaabaan ahayn baana lagu soo dhaweyn doonaa madaxweynuhu aad buu raali ugu noqday waa iga hambaliyeeyay marka sidaa darteed waxaan u jeedaa inkastoo waxyaabahaas yararka ay jireen haddana runtii magaca guud ahaan waa madalaynaa haddana runtii waxaan aad iyo aad marlabaad kow iyo laba iyo saddexba aan ugu mahadnaqayaa runtii gaar ahaan sida gaarka ah oo garashada leh oo maaragtay isku duubnaanta oo unitiga ah oo ay beesha u aragtay in Cali Xasan maanta uu yahay positionka nin ku haboon ma anigu u sameynaa iidha u sameynaa ma laakiin fortunately isaga u sameysan qaabkaas personality-giisa u sameysan aad baa mahadsantihiin assalaamu calaykum waraxmatullaah وقاس جزاك الله سلام الله عليك ملك أنا كبر الله بيت هلا سلام الله عليك aad ma santahay kaasi wuxuu ahaa Cabdalla Maxamed Aadan oo ah xogayaha jaaliyada dabcan waxaan rajeynayaa gacmo si hoos ah loo dhaqaahay bal wax walba in si hoos ah loo farsameeyo insha Allah waxaan u gudbayaa Xuseen aqoonyahan Xuseen Yuuqow Xasan oo kelmad kooban isagana halkaan inoogu soo jeedin doona falyatafadal Xuseen بسم الله الرحمن الرحيم وسلامتين كلين انت كسoo qayb gashay odayaasha xildhibaanada mas'uuliyiinta ugaaska iyo odayaasha jaaliyada degel Meerfle kulligeen waxaan leeyahay soo dhawaada maanan u istaagan meeshan kulligeen inaan idinka aqoon badanahay ama xoogaa aan idinka aqaano maxaa la jiro ugaaska kulligeen waa wada taqaan ugaaska idinka soo doortay marka munaasabadan maanta waxa loo qurxiyay ama loo design gareeyay waxay ahayd inay beelweynta Soomaali ay nala ogaadaan garre maanta inuu leeyahay ugaas u dooda ama ugaas lagala xaajoon karo beelkaas ugaas ay leedahay kulli ugaaska beesha garre Europe iyo America iyo Asia iyo inta diaspora ku nool maanta waxa lagala xiriiri karaa postcode uu leeyahay postcode-kuna waa ugaas Cali Xasan waxaan jeclaan lahaa ugaaska inuu noqdo yani ugaas cadaaladda iyo horseedka nabadda iyo conflict maanta Soomaalida ka dhex taagan inuu door weyn ka ciyaaro uu noqdo mid Ilaahay subxaanahu wa ta'ala xilkiisii uu yani si wanaagsan u guto oo waxaan Ilaahay ugu